wararka ka imaanaya degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa saaka ku waramaya in dab xooggan uu ka kacay kaalin shidaal oo ku taala degmadaasi iyadoo dabkaasi lagu soo waramayo inuu geystay khasaare lixaad leh oo hantiyadeed. dadka goobjooga ah ee ku sugan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo aan la hadalnay ayaa xaqiijinaya in dabka uu ka kacay kaalin shidaal oo bedel lagu magacaabo oo ku taala degmadaasi Gurceel uu ku faafay goobo ganacsi oo hor la isla markaana uu geystay khasaare burbur hantiyadeed oo markaasi aan ilaa haatan la shaacin inta uu leeyahay. hase yeeshee wariyaal ku sugan degmada Gurceel ayaa sheegaya in uu socdo dadaal markaasi lagu xakameynayo dabkaasi oo markaa ku sii faafaya goobo ganacsi oo ka agdhow halka uu ka kacay. ilaa haatan lama xaqiijin haddii uu jiro khasaare nafeed, laakiin waxa dadku ay sheegayaan in ay burburtay gebi ahaanba goobtii ganacsi iyo sidoo kale dabku inuu saameyn ku yeeshay xarunta shirkadda Hormuud ay ku leedahay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. dadaalada ay doonayaan dadka reer Gurceel inay ku baqtiyaan dabkaasi si uusan u geysan khasaare inta ka sii badan ayaa soconaya inkastoo ay adag tahay oo markaasi gaadiidka gurmadka ee dabdamisku ay ku yar yihiin degmada Gurceel. mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaanu la hadalnay waxaana ay sheegeen in ay dadaal ugu jiraan sidii dabkaasi loo baqtin lahaa si uusan u geysanin khasaaro aad uga sii badan midka hadda uu sameeyay, isla markaana ay dib ka baari doonaan sababaha keenay dabka inuu halka ka kaco. inkastoo la sheegayo in dabka ay dhalisay koronto markaasi ka agdhaweyd kaalinta shidaalka.